وصوبحي وسياشن يلبدي دردبان إمادي دردب waxaa ugu imaaday dad aan aqaano oo odayaal ah oo haween ah oo qaraabo ah oo xigta ah yaan ugu imid dirdaba waa iswareysanay war meeshaan maxaa ka soo doonteen yaan dhahay waxay dhaheen dalkii aan ka soo safarnay meeshaan waxaan u nimaadnay inaan teleefon ka dirsanaa u nimaadnay dirdaba iyo xamar diyaarad looma kala raaco qofka ay danta ka soo qabato inuu qaraabadiisa oo dibadda joogo uu la hadlo waqtigaas aan idiin sheegayo waxay ahayd baabuur inuu raaco balweyne sii maro halkaas qallaafa ka galo qabridaarihii shalay ra-iisul wasaaraha uu joogay uu tago dirdaba uu tago si uu teleefon u dirsaday soo maa hadda adinka maxaa samaysiin geed kasta oo Soomaaliya ah oo ah loos istaagaba network buu leeyahay taa waxaa suuro geliyey oo ammaanteeda iskale waxgaradka Soomaaliyeed ay hormuudka u yihiin sharikadda hormuud dadka dhan waa isweydiiyaan say suuragal ku noqotay 3 bilood kadib haddana waa safray Kenya aaday waxaan tagay Mandera sidii oo kale dad aan aqaano Mandera joogo yaan ugu tagay war maxaa soo doonteen teleefon inaan dirsana ayaan soo doonay marka waxay daliil u tahay hormuud waxay daliil u tahay kartida qofka Soomaaliyeed ee caqliga leh ee maskaxda leh ee ka fiyo cudurrada dalka iyo dadka lagu burburinayo ka fiyo